xaalad deganaanshaha ayaa laga dareemayay labadii maalmood oo ugu dambeysay deegaano ay ka mid yihiin Qoriley, Magacley, Bumburka iyo Cagaare. Deegaanadaasi oo ay dagaalo beeleedo ay halkaasi ka dhaceen maalmihii ugu dambeysay. Dagaaladaasi ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dadka deegaanadaasi ayay dagaaladaasi saameeyeen oo xoolo dhaqato badan. Siyaasi Mursal Cabdi Maxamuud oo ku magac dheer Boocamaawi ayaa ugu baaqay beelaha dagaalamaya inay joojiyaan colaadda kuna bedelaan nabad iyo wada hadal. waxaana uu maamulka Puntland ku eedeeyay in colaadda deegaankaasi ay ku lug leeyihiin. waxaana uu ugu baaqay maamulka Puntland in ay faragelinta ay deegaanadaasi ku hayaan ka joojiyaan. shirkan jaraad waxaan u qabanay inaan kaga hadalno arrimaha ka jira deegaanka Qoriley ee duulaanka ka soo qaadeen dowlad goboleedka Puntland gaar ahaan ciidamada Cabdiweli Maxamed Algaas taasoo ciidankiisu adeegsaday hab beereed oo sidii deegaanka nabadgelyada uga shaqeynaa laakiin oo ka dhigay inuu ku soo duulo dad shacab oo jooga guryahoodii. muhiimaddu waxay tahay waxa la isku hayaa guri reerba deegaan reerba mise waa xad iyo deegaan ay dad leeyihiin. taa waxa la oran karaa waa guri ay leeyihiin dad darisa oo ehela laakiin uu ka dhigay hab qabiil oo uu maamulkii Puntland u adeegsaday ciidankiisii. marka waxaan leeyahay beesha Dhuubaante meeydi fahmin waxa ka jira meesha ama deegaanka ka jira isagu soo wada ama qaabka u dhigay waxa weeye waa qaab dawladeed soo dalbalaarsi iyo xadbalaarsi iyo deegaamo hor lagu qabto beesho. idinkuna waxaad arkaysaa in beel lagu soo duulay laguma soo duulin waxa lagu soo duulay deegaankii beesha Dhuubaante iyo xuduudda ay la lahayd Ingiriiska iyo Talyaaniga ay lahaayeen gaar ahaan xuduudda Ingiriiska lagu soo duulay. waxa kale oo jirta arrin inaynu leenahay maxay u difaacayeen Somaliland ama maxay u difaacayeen Khartoum umaleyn maayo iyaga isku mashquulsan oo dana siyaasadeed ayaa ka dhaxeeya. taa waxa leeyahay marka inaad ka baxdaan arrintaas oo iska dhaysaan oo dantiina garataan oo idinku isku tashataan oo cadawga iska difaacdaan oo howlahan rasmiga ah ee deegaanka ka jira sida ay tahay xaqiiqada aad u gashaan. hore bay u jirtay in laga dhaxgalay odayaal dhinac walba isaga yahay hasaatee qowlkii waxa jabiyay ama axadiga jabiyay waa maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Algaas. nin baa loo dhiibay wuxuu dhiibay ciidanka Itoobiya waa diideen ilaa hadda way ku maqan wala qori wala rasaas midna lagama hayo. taa waxaan leeyahay marka shacabka Dhuubaante ama gobolada tan Khartoum guud ahaan iyo gaar ahaan SSC hadii la yahay gudaha iyo dibadda in la isugu yimaado shir degdeg ah oo danaha deegaankan lagaga hadlayo iyo arrimihiisa oo la doonayo in dagashigaas waxa weeye hawsha qafka ee deegaanka la barkiciyay ee caruurta lagu laayay ee waliba guriga la gubay gubitaankana aan leeyahay hadii la gubo ayar Magacley iyo waxa weeye meeyagle midna ahaan maayeen dal la deganaado ama magaalo waxay noqon doonaan saxare la subadalo. in yar haddaan raacsado waxa jirta in la leeyahay bixin waxa la dhigay hadeer oo lagu soo ceshay dhagixii magaalada lagu marmarsiinay ama sid la leeyahay waxa loo leexinayaa taleex. taa waxa la Cabdiweli way ka fashilantay arrintaasi istiraatiijiyada doonaysan way fashilantay in gobolada kuwa kula joogana doo kuwa magan kula joogay ama adbriska siisay iyadana waxaan leeyahay meesha ka kaco iska soo qaata waxa gobolkiina imaado oo dadkina ku soo biira waraysiga intaas ku soo gabagabeysan yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.